muxuu xambaarsan yahay heshiiska halkan markaa labada dal maanta ay kala saxanayaan ujeedooyinku waxa weeye kow waa in la dhiso qaab sharciyeed oo rasmi ah oo lagu xoojinayo xiriirka soo jireenka ah ee labada magaalo ama labada caasimadood in la iska kaashado markaa dhinacyo kala duwan ay kow ka tahay dhaqaalaha iyo horumarinta adeegyada bulshada iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha intaba in la xoojiyo la iskana kaashado amniga gobolka iyo in la iska kaashado bilicda magaalooyinka labada dal runtii eriyooyinka uu si rasmi ah u taaban doono haddaan in yaro faahfaahin ka bixiyo horumarinta dhaqaalaha waxaa runtii labada dalba ay xoojin doonaan xidhiirka ganacsiga waxaana la dhiirin geli doonaa maalgashiga kala duwan iyadoo oo la taageerayo ganacsiyada kala duwan gaar ahaan kuwa yaryar ee haweenka iyo dhalinyarada xagga waxbarashada iyo aqoon isweydaarsiga waxaa runtii la dhiiri gelin doonaa iskaashiga jaamacadaha dugsiyada farsamada gacanta iskuullada hoose iyo kuwa saraba iyadoo runtii la isweydaarsan doono lana fududeyn doono macallimiin khibrado kala duwan leh ardayda oo runtii isu gudbi doonta cilmi baadhisyo iyo deeqo waxbarasho oo runtii ay labada dal runtii kala heli doonaan waxaa iyaduna runtii cusub mudan dhinaca dhaqanka iyo ilaalinta dhaxalka taariikhiga ah waxaa la qaban doonaa xaflado wada jir ah oo kor loogu qaaday dhaqankeeni taariikhiga ah iyadoo markaa lagu soo bandhigayo si farshaxamaysan barnaamijyo luuqadeed suugaaneed iyo mashaariic lagu xoojinayo taariikhda faca weyn ee runtii naga dhexaysa waxaa iyadana runtii xusid mudan qorsheynta magaalooyinka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha in la iska kaashan doono iyadoo markaa waayo aragnimada la isweydaarsanayo qorsheynta magaalooyinka maamulka qashinka iyo maamul wanaagga iyo guud ahaan horumarinta adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha xagga deegaanka iyo adkeysiga cimilada maadaama climate change jiro waxaa la iska kaashan doonaa barnaamijyo runtii lagu ilaalinayo deegaanka mashaariic runtii wax lagaga qabanayo inay magaalooyinka adkeysi u yeeshaan isbedelka cimilada waxaa runtii labada magaalo ay iska kaashan doonaan bilicda iyo cagaareynta magaalooyinka caasimadaha ah ee labada dal runtii waa heshiis micno badan xambaarsan waa heshiis runtii guulo waaweyn soo hoyi doona bulshooyinka ku dhaqan labada dal oo ay runtii wax weyn ka bedeli doonaan noloshooda aqoontooda iyo runtii horumarka dhinac kastaba waxaan leenahay reer Jabuuti waddankiini baad joogtaan walaalayaal ku soo dhawaada gacmo diiran kaliya laawadi soo dhaweynaynaa fanaaniinta halka wax badan runtii suugaan sheegay hargeysina waa hoyga dhaqanka iyo suugaanta sidoo kale hadana waa hoyga quraanka magaalada madiinatu quraan way noqotay hargeysa wax badan bay xabaarsan waxaan runtii isleenahay waxaad muujiseen gobonnimadii iyo dhaqankii iyo martisooriyadii iyo sharaftii iyo hospitalitygi lagu yaqaano Jabuuti sidaan ka warqabno waxa weeyaan wadan aynu jaarnahay waa wadan ay taariikh badan wadaagno waa wadan walaaltinimo guuni inaga dhaxayso dhaqanku inaga dhaxeeyo ay diintu inaga dhaxayso isir wadaag aynu leenahay tol iyo xididba aynu nahay laba bulsho oo walaal ah oo soo jireen nahay laakiin labada baayar si sharci ah oo formal ah oo official ah ayuu bay saxiix ugu runtii maanta iskaashigan ku saleysay